بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيكتوريا سيمبر قاقاياش ميكستا تشوكتي وحويان مانتو حربنا شركة سدحات إنا محفانسيو مانتو لبشي مدنا سوشير قريي من نوحان كشير قريي أبوانك محمد يحيى siduu maxamed siyaad baro u sheegay ragga noo madaxda ah iyo dadka madaxda ah adduunku dadku madaxda ah waxay ummadooda u qoondeeyaan iyo taladay ummadooda u soo jeediyaan unbay horta taariikhdu tahay taariikhdu wax lumaysa ma wax walba qoran tahay faysal cali waraabe haddaan ka hadlo reer somaliland aan la hadlo maanta somaliland dhibta haysato waxa weeyaan siyaasiyiin ma laho siyaasiyiin somaliland ma laho horta ninka soo fariistay ee kule waxaa aniga haddaan madax ahaan lahaa dowladda xoog lahaan leed coldan waa dili lahaa wi marka waxa weeyaan taladii somaliland iyo dadkan somaliland sheeganayo madaxtinimadii waxay iskugu soo aruurtay reer sidii geelii reer shaqasxaaq ayay iskugu soo aruurto waa geel jiro meel soo fadhiyo oo waxay u haystaan hargeysa berbera burco boorame zaylac ilaa laasqore waxay u moodaan in isaaq leeyahay dhulka hadday cerigaaba tahay hadday burcad tahay hadday sanaag tahay hadday sool tahay reer somaliland waxay iska dhaadhiciyeen dhulka inuu leeyahay isaaq waxay iska dhaadhiciyeen snm inay isaaq ahayd maaha snm waa somali national movement taajir walbii nin walboo soomaali aa sheergareeyo oo lacag bixinay marka waxa weeyaan taariikhdu waxay qoraysaa baal madow bay qoraysaa ninkii shalay u fataalayay gani generaal gani iyadoo snm dagaalamaysa asagu fataal buu u ahaa generaal gani ee fakinka hargeysa ku qayilayay ee hablaha u geenayay ayaa maanta odhanayo coldoon waa dilaya inuu soomaaliya tago maaha dadku waa walaalo reer jabuuti soomaaliya tegi karaan soomaaliyana jabuutay tegi kartaa oo viisa barkana laga siiyaa reer somalilandna waaba soomaali qurunkaa wuxuu ku hadlayo bal ila dhegeysta marka waxa weeyaan taariikhdu way qoran tahay haddaan kusoo laabano taariikhdii maxamed siyaad baray khudbadiisa 71 dhallinyarada kudayashuu leeyahay abasiyaad wax ka barta hadday abaaraha tahay hadday dhismo tahay hadday iska qabso tahay hadday xoogga dalka soomaaliyeed yahay abasiyaad wuxuu ahaa leader real leader uu ahaa legend soomaali ninkaa taariikh ka galay ما أهين علي عبد الله ما أهين عبد الرشيد شرماركة ما أهين شوكتا أو إذل محمد سياد بروحوها بريه أمدا محمد سياد بروحوها سيرات كأفريقيا محمد سياد بروحوها لباحة أفريقيا مركو حني شيء ما أنت سلاين وأوتشدين سلاين وأوتشدين بمبرس كحرانة وحنا تلينكرن الدك يسكت دري قبيلات سعلي فاس على ورابو عركتين بانتو مني كان سياسي الأوران كان واحد كوهد لي ونين سحفية oo sharaf leh la garanayo saxafiga Soomaali iska dhaaf adduunka dhan u dhaxeeya maxaa lagu xiray sidee farmaajo u heesta farmaajo u heeso madaxweynaha waddanka dalka Soomaaliya uu adiga gulada siyaada qaadi jirtay ninkani Ordon waa legend Ordon taariikhdu galay Nabi Yusuf waa la xiray Mandela waa la xiray qof walba la xiray aniga xataa waa la xiray marka waxa way xariga maaha inuu ku baaba'ayo looma xirina soo xashishad gadayo looma xirina soo khamri gadayo looma xirin tuugnimo waxa loo xiray wadaninimo nationalist weeyaan Coldoon xornimadana waa loo dhintaa Coldoon waa ninkii Somaliland tusi lahaa Soomaalinimada Coldoon waa ninkii dhalinyarada jiilka saddexaad ee Hargeysa jooga ay ku dayan lahaayeen weeyaan marka waxaan oranayaa viva Coldoon oranina weligiya xirnaa ma xirno qalubteenu ku jira xor weeyaan ninkii xor weeyaan maaha biro lagu geliyay inaad xornimadaada u gadatid maaha Coldoon waa ninka kaliya geesi ah ee ku jira reer Somaliland si u sheegtaan oo dhan oo runta ka dhawaajiyay masaakiinta wax taray ee xornimadiisana waxa weeyaan waddanka leh xornimadiisa uu xoroobay insha Allah Somaliland waxay soo naqani markii Coldoon la soo daayay Coldoonana keenay hasta Victoria Sember ka qayaas waxa oranaynaa madaxweynaha sharafta leh Farmaajo Abdullaahi Farmaajo international court ninka waa la soo dayaa ninka dhalinyarada u baahan ciyaalka u baahan taariikhdu galay
coldoon waa in la soo dayaa free coldoon keliya maahane xoog waan coldoon lagu soo dayaa jeelka jibisaan hasta la victoria sempre kaash mac salaama